taliyihii laanta ciidanka birmadka ee gobolka Saaxil Aadan Guule Daahir oo loo yaqaan talaabo ayaa saaka geeriyooday kadib markii uu toogtay askari ka tirsan ciidanka birmadka ee gobolka Saaxil dilka taliyaha ayaa dhacay saaka kadib markii ay ka soo dareereen munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee qaybta bilayska iyo taliyihii hore dilka taliyahan ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn saldhigga dhexe ee ciidanka booliiska ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiglihii dilkaasi geystay oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamed Khayre garmale lagu naanaysi jiray taliyaha qaybta booliiska ee xilkaasi la wareegay Cabdirasaaq Yuusuf Maxamed oo aan warinta wax ka weydiinay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliisku ilaa hadda ay baaris wadaan isla markaana gacanta lagu hayo gacan ku dhiglihii dilkaasi geystay geerida aad maqasheen baa dhacay inaan la weynaa la raajicun sarkaalkaas la dilay gacanka xaq daran baana dishay ninkii dilayna gacantaan ku hayna sharcigana waa la horkeeni doonaa hadii alla yiri idinka maxay ku ogaalat taliyo oo ku ogtihiin arrimaha dhexmaray oo taliyaha ku dhintay arintaasi baaris bay ku jirtaa waana soo bixi doontaa wixii taa baaris baa ka hor dhicin maayo ciidanka booliiska ee gobolka Saaxil ayaa dadweynaha aad u tiro badan oo ku soo buuqay saldhigga dhexe ee magaalada Berbera la tacaalayay iyagoo qaarkoodna xabsiga u taxaabay kadib markii ay mudaharaad ay ka horsameeyeen saldhigga dhexe ee magaalada Berbera xaaladda guud ee magaalada Berbera ayaa ah mid degan isla markaana ay ciidanku adkeeyeen amniga isla markaana ay xidheen wadooyinka kala duwan ee iyagu saldhigga ku soo baxa Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera.